بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. run ahaantii waxa maanta dalkeena iyo qarankeena Soomaaliland haysata qaybo badan oo kamid ah abaar laxaad leh oo saameysay waxyeello weyn u geysatay duunyadii la dhaqanayay dadkiina khatar ku jiro. xogaha iyo warbixinaha ay soo ururiyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo international community-ga u qaabilsan arrimaha iyo xogaha ay soo ururiyeen guddiga abaaraha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu magacaabay iyo maamulada gobolada iyo degmooyinku dhammaantood xogahaasi waa xogo isku mid ah. waxaa la xaqiijiyay dad gaaraya ilaa 1 milyan oo muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yihiin inay maanta ay abaartaasi hayso oo xaalad adag ay ku jiraan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaynu ka baryaynaa inuu duruufta inaga samata bixiyo roobna ina siiyo. markii xogaha la eegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shir degdeg ah ayuu qabtay gudiyadii samafalka iyo abaaraha u xil saaraa. xogihii hay'adaha caalamiga soo ururiyeenna waa la isu keenay hay'adaha daraasadaha sameeyay. waxaa la garwaaqsaday in ay lagama maarmaan tahay in shacbiga Soomaaliland guud ahaan iyo dunida islaamka iyo beesha caalamka intaba inaynu ugu baaqno inaanu u cadayno in xaalad abaareed dalkii ay soo food saartay si rasmi ah loona baahan yahay gurmad iyo taakule degdega in dadka la gaarsiiyo. arrintaas waa arrinta ugu weyn aanu jecelahay maanta inaanu warbaahinta u marino bulshada Soomaaliland iyo beesha caalamka intaba in xaalad abaareed oo laxaad leh ay maanta dalka ka jirto oo ilaa 1 milyan oo qof ay saameysay. sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in gurmad bini'aadanimo oo degdega dadka walaalaheena tabaalaysan aynu la gaadhno. waxaa lagama maarmaan ah inaynu qaran ahaan isku tashanno ilaahayna subxaanahu wa ta'aala barino u toobad keenno u noqonno inaguna aynu qaran ahaan isku tashanno isla markaana aynu muxuu ahaayay aynu u bandhigno muxuu ahaayay waayaheena iyo duruufaheena dadka wixii aynu wax wada leenahay iyo wixii inaga naxaya intaba. arrintaas waa qodobka koowaad. arrinta labaad waxa weeye waxa guddigu markii ay isu timi ay isla garatay in la sameeyo gurmad degdega dhaqaale ururin degdega isku tashi degdega in la sameeyo. xaaladdu waa xaalad ballaaran waa xaalad ka sii dari karta oo loo baahan yahay in la sameeyo qorshe dhow iyo qorshe fog. qorshaha dhow waxa weeye in dadka lagula tacaalo goobaha ay joogaan sidii biyo iyo cunto loo gaarsiin lahaa. qorshaha dambe waxa weeyaan haddii xaaladdu sidan ka sii xumaato in lagu mintido dadku inaanu maran ama dhiman ee dadka lagu ururiyo goobo caafimaadkooda la diyaariyey muxuu ahaayay deegaano oo aan laga taxadiro laga hortago in cudurro dilaacaan dadkuna ay saamayso. arrintaas qorshahana gacanta lagu hayaa. waxaynu u baahannahay gurmad degdeg ah in dadka gaarsiino. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Siinaaya galwadeega ka yahay markii aanu isku noqonnay duruufo adag ayaa sanadkan qarankan saameeyay. bishii labaad waxaa dhacday abaartii gobolada galbeedka. waxa kale oo xukuumadda soo food saareeyay diiwaangelintii codbixiyaasha oo adduun badan uga baahday oo aan xisaabta iyo qorshaha ugu jirin. xukuumaddu waxay bixin jirtay iyo xukuumadii ka horeeyayba waxaa dawladda Soomaaliland ay bixin jirtay 25% diiwaangelin iyo doorashada hadday timaado. waxay naga caawin jiray dawladda aynu saaxiibnahay. xilkan inagay tahay inaynu qabsanno hase yeeshee si maadaama aynu nahay qaran taag daran duniduna way inoogeedo way laynaga caawin jiray. arrintaasi sidaa uma hirgelin. maanta dhaqaalihii inta badnayd iyo laxaadkiisiiba waxa bixisay dawladda Soomaaliland
si doorasho nadiifa dalkan looga qabto halkaana dhaqaale fara badan oo aan dawladdu ku talagelin ayaa dhiigbaxda kaga yimi waxa kale oo jira amniga dalkan oo ah waxa weyn ee aynu ku fadhino waxa dawladdu ku bixisaa adduun badan duruufaha iyo dhibaatooyinka imanaya laguma tala galo waa wax cawaarida hoos soo kordha reera islaaya deegaano isku dhac ka yimaado ciidamadii qaranka ee difaaca loogu tala galay oo toban guuto la dhaxgeeyo waxaasi wax iisiya ma adduun bay ku socdaan marka runtii duruufaha faraha badan ayaa xukuumadda sanadkan ku yimi iyadoo sida xaaladdu haddana tahay ilaahay ma haddii waynu ka soo dabaalay ilaahay baa inagu taakuleeyey ilaah baanu ugu mahadnaqaynaa sanadkan waa dabayaaqo bishii 11 baa lagu jiraa dawladuhu hadda ay markay gaadhaan barjedkooda oo dhammi wuu dhamaadaa iska daa inagoo aan layna aqoonsanayn oo itaal weyn lahayne dawladaha xoogga leh ayaa barjedkoodu dhammaadaa xilliyadaas duruuftaas haddana dadkaa walaaladeena ee aanu dawladda u nahay waxba ka hagran mayno waxaanu daynu heli karro iyo waxaanu deequ heli karro waxa weeye waajib qaran oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa saaran weeye kayd meel inoo yaalaana ma jiro duruuftaa markaanu ka eegnay waxaanu xukuumad ahaan madaxweynuhu na amray inaanu arrintaa gurmad degdega ka gallo waxaanu guddiga abaaraha qaranka ee xukuumad ahaan ku wareejinaynaa 8 bilyan oo Soomaaliland shilingisa oo lacagtaas 8 bilyana oo u dhigantaa muxuu ahaayay milyan iyo dheeraad dollar wax googo yaroo la socda u dhiganta sarifka muxuu ahaa waxa kale oo guddigu ay isla garatay guddiga abaaraha qaranku waxay isla garteen in la sameeyo berito oo ah khamiis 10 markay saacadu tahay shir weyn oo ballaadhan oo ganacsatada qaranka loogu yeerayo madaxweynuhu marti qaaday iyo guddiga abaaraha qaranku dhammaan ganacsatada waaweyn ee caasimadda joogta waa shirkaas lagu marti qaadayaa magacyadooda telefoonadooda waa la wada xiriirayaa dadna waa la wargelinayaa idaacadahana waa laga wargelinayaa waa laga naadinayaa waxa weeye waa maalintaynu isu gurman lahayn waa maalintaynu ummad ahaan wax istari lahayn shirkaasna ganacsatada waxaa guddiga abaaraha qaranku ay ka doonayaan iyo madaxweynuhu kaalmo weyn oo mugla inay maanta geystaan waxa kale oo guddigu xoog saaraya oo u aqoonsaday maalinta jimcaha saa dambe maalintii tabarucaadka qaranka ayaa loo aqoonsaday hawshaas masaajidada oo dhan waxaa laga samayn doonaa muxuu ahay wasaaradda diinta iyo awqaafta isku dubaridi doontaa ducaa istisqaa ducooyinkii roobdoonta ee qunuudka ahaa waxa kale oo laga ururin doonaa masaajidada dhammaantood tabarucaad suuqyada waxaa la ballaadhin doonaa wacyigelin ballaadhan baa la samaynayaa waxaa guddigu xoog saari doontaa nidaamka tabarucaadka yaryar lagu ururiyo ee electronic moneyga muxuu ahaa saadka iyo idahabka oo ah wax weyn abaarihii dhaweyto wax weyn oo ka tartay runtii dunidu waa waxa hal gini iyo hal dollar ayaa lacagaha dunida saddexaad dawladaha horumaray ugu deeqayaan ee ka maalgeliyaan waxay ku ururiyaan hal dollar iyo hal bini dad walaalo baynu nahay haddii ay walaaladeen qaar dhimanayaan muxuu ahaayay waxa aynu cunno inta yaraynu gacanta xeeladaynu gelinno baynu wax ka siin karnaa waxaynu ummad taqaana dhaqanka takaafulka ama wax wadaagga iyo wax isasiinta iyo quudha gobonnimada bulshadani ay leedahay bay ka mid tahay arrimahaas arrimo inagu cusub aynu hadda dadkeenna barayno ma aha waxaynu u baahannahay abaabul laxaad leh iyo wacyigelin baynu u baahannahay waxa kale oo iyadana guddiga abaaruhu ay qaban doonaan habeenka haddii eebba idmo sabtidii soo gelayso 6 galabnimo waxay qaban doonaan barnaamijyo ballaadhan oo tiifiyada ka baxa waxa la wixii TV samayn kara TV-ga qaranka kuwa madaxa bannaan barnaamijyo live ah oo qaaran lagu ururinayo isla markaana guddiga abaaruhu bulshada iyo dadkii deeq bixiyaasha ahaa ee Soomaaliland ee sadaqada bixiyay uga waramayaan wixii soo galay sidii ay u isticmaaleen guddigan abaaraha qaranku waa guddi ballaadhan bishii labaad ee sanadkan baa madaxweynuhu sameeyey waa guddi ka kooban xukuumadda Soomaaliland xubno ka mid ah culimada diin mistaaqiyad iyo qiimo weyn ku fadhiya culimada
iga dambaysa ay ka mid tahay iyo ganacsato waaweyn ee shirkadaha waaweyn ee waddanka ay ka mid yihiin ujeeddadu waxay ahayd in aynu xaaladdaa ka wada jawaabno wax wada maamulno wax isku darro muxuu ahaayey wixii adduun ama dawlad ha bixiso ama cid kale hayna siiso si siman baa ama muwaadiniinta Soomaaliland ha ku deeqeen si siman baa loo maamulayaa khasnada iyo jeeg iyo cidda haysaana waxa weeye aan ummadoo dhami ku aamintay waxa weeye waa nimanka culimada weeye ilaahay khayr ha siiyo hawsha iyada waxaanu bulshada Soomaaliland ugu baaqaynaa in si mug leh ay arinta uga qayb qaataan dadka walaalaheena aynu samata bixino ilaahay way isku keeneegayaa haddaynu isu naxariisano inagana waynu naxariisanayaa bulshada kalena caalamkana waxaanu ugu baaqaynaa in qarankani maanta Soomaaliland u baahan yahay gurmad degdega oo muxuu ahaayay iyo kaalmo bini aadamnimo u baahan yahay inta ayaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baan mahadsantihiin waxa kale oo iyadana aanu samayn doonaa dawlad ahaan sidii caadada noo ahayd xilliga abaaraha ay dhacaan mushaharooyinka shaqaalaha iyo madaxda qaranka dhammaantoodba waxaanu laga gooyaa waxyaalo kooban oo laga yaabo inay qofka wax u ahayn laakiin wax weyn u noqda muxuu ahaayay ka noqda arrimaha abaaraha oo ku biiriya meel gufeeya ama meel gabadana ka imanaysa gufeysa aad iyo aad baa u mahadsan